saxaafadda daljir waa soo dhaweyneynaa markaad kaaga waramo si kooban waxaan joognaa hadda waxa weeye degmada ama deegaanka Garacad magaalo xeebeedkeeda oo aan kaala hadlayo magacaygu waa Axmed Aadan Dheere hadda waxaan joogaa Garacad oo deganahay awalna gobolka Mudug iyo meelo badan baan horay u deganaa haddana tana waa deegaankayga labaad taariikh ahaan iyo xaaladda ay hadda marayso iyo waxay ku bilaabatay markan Garacad warbixin kaas iyo waxa weeye Garacad magaalo ahaan waa taariikh dheer tahay waa magac dheer tahay waxay ka mid tahay magaalooyinkii deegaan ahaan loo degay xagga ganacsiga iyo kalluumaysiga rasmi ahaan 1943 Garacad markaan leeyahay ganacsiga halkaa ka bilowday waxaa deganaa kalluumaysato isaga kala timid gobollo badan oo aan hayn deegaanka sida reer waqooyiga koonfurta deegaanka laftigiisa waxayna ku noolaayeen xeebtoodaas waxay la soo bixi jireen khayraadka ay ku nool yihiin iyaga raashinka waa kalluunka ah iyo midka la iibgeeyo oo xilligaas ahaa kalluunka la qalajiyo oo la cusbeeyo sida oo loo yaqaan libaax badeedka waxaan marka xilligaas baa la soo degay ganacsataduna soo degtay ganacsatadaas markaan ka bilaabo kuwii degmada Jiriiban iyo deegaankan ahaa ka soo kow waxay ka soo guureen magaalada Hobyo la yiraahdo bay ka soo guureen xilligaas aad garanaysid Allah u naxariisto odayaal badan oo aasaasay hadda aan maanta nooleyn baa jira waa meeshii u horeysay oo Hobyo looga soo guuro Xaaji Xasan oo caan ku ah gobolka Mudug baa ka soo degay wuxuu ugu yimid odayaal kale oo ganacsato ah oo waaweyn oo degmadan Jiriiban iyo Garacad halkan ismihii u horeeyay oo guryo ah oo daara leh iyo bakaaro iyo raashin ka meesha la dhigo masagada oo doonyuhu keenaan baa halkaas horta aasaaskeedu ka bilowday haddii xilligaas oo ahaa xilligii Ingiriiska uu markaas sanadkaas uu haystay bay ahayd dagaalkii labaad ee adduunka markii aan maqalay taariikh ahaan xilligaas ay ahayd kontonkii baa Talyaaniga dib ugu soo noqday ilaa xilligaas daakhiliga ah 10 sano oo u dambeysay oo kontonkii ilaa 60kiina waa daakhiligii Talyaanigu unadu ay tiri gaarsiiye xornimada dalka Soomaaliya waa koonfurta waqooyi naguma jirin waa dhinacan koonfureed bay ahayd haddii marka halkaas ay taariikhdeedu madhay intii ka dambeysay sidaas ay u korkoraysay xoolo dhaqataa u badnayd dadkan xoolahooda iyo kalluunka halkan laga soo saaro oo libax badeedkaas ka mid yahay iyo alaabo kale oo la xiriirta badda la saari jiray Sinkibaar oo ka tirsan Tanzania xeebaheedaas ayaa la geyn jiray halkaas ragga halkaa ka safraa ka soo badeecadooda ka soo gadan jiray xamar ma ay geyn jirin halkaas ay geyn jireen taariikhdaas xilligaas baa sidaas ay ahayd markii ka bacdi daakhiligii iyo doorashooyinkii adduunkii la galay waxay ahayd meelihii gobolka Mudug dhinacan u soo xigtay oo ugu soo dambeysay xagga waqooyi bari waxay ka mid noqotay halgankii dheeraa dadkii gaalkacyood dadkii ka halgamahayay nabadoonadeedii iyo odayaasheedii iyo xilligaas meelihii shirarkaas ay ka qayb geli jirtay arrimaha siyaasadda waddanku waa yaraa xilligaas hadda aan ka sheekaynayo galgaduud oo dhan ilaa Buurtinle Mudug baa laga xukumi jiray inaa barataan baa la rabaa dhuusan mareeb degmo ka tirsan waxay ahayd gaalkacyo intaan hadda aad aragteen oo Galdoog iyo Xarar Dheere iyo waxay ahaayeen intii kacaan ku arlada qabsaday marka dokumentigeedii baan hayaa iyo taariikheedii
xaaladdu marka haddii 60kii la gaaray talyaanigii waxaa lagu goystay halgankii dheeraa oo Soomaaliya ay raadinaysay gobonnimada waad ogtihiin gobolka Mudug ninkii u horeeyay ka soo baxay oo madax noqday reer Mudug buu ahaa Cabdullaahi Ciise ah reer Gaalkacyood buu ahaa ururada intooda badan raggii ka soo galay oo deegaankan ahaa hadda Puntland ku abtirsanayay laakiin xilliga xaradheere deganaa raggii reer Cismaan Sharmaarke bay ka mid ahaayeen oo raggii u horeeyay xisbiyada ka furtay waxaan hayaa xilligaas hadda isticmaalka uu ku jiray dalka 56 waxaa wadanka hadda aan meelaan waxaan ka maqmaqlaa iyadoo hadda 60 sano ka hor xornimo aanu galay halkaas intaas 10 xisbi baa koonfurta ka jiray oo nin walba mid walba magac leeyahay oo tartan ku galayay isagoo xisbi ah hadduu reer ha ku shinisaado mid walba magac uu leeyahay calaamadaas uu leeyahay mid karaawil ka dhigta wataas leegad halkaas kaga jidhaa waa u jeedaanin ma garatay wataa leegadu ma garatay adinku caan ka baxday inta kale wataas waxa weeye kuwaas waxa weeye waxa lahaa calaamadaas meeshan hadda galmudug ayna u naqan ba calaamadaas lahayd kuwa kale magac iyo waxaas ku qoran koonfurta Baydhabo aareeda magac bay leedahay halkaas ku qoran yahay xisbigaas lahayd qabiil walba banaadirigu waa leeyahay waa kuwaas xilligaas waxa ahaa 10 xisbi baa ka jiray marka sidaas darteed waxa weeye maantana waxaan maqlay maamulkan hadda dawladda ka yahay xasan sheekh maxamuud inuu yiri laba xisbi baa loo baahan yahay oo midna waqooyi qaato midna koonfurta qaadato oo laga dhigo xisbiyada labadaas kaliya haddii adduunka halkaas uu maraya waxaa la rabaa adduunku saas inay uga socotaan halkan deegaanka marka uu soo noqdo Garaacad iyo taariikhdeeda intii ka dambeysay saas isu koraysay degmada Jiriiban oo aan markaa degmo ahayn xilligaas waxay qaadatay degmada dawladii calan saarkii 68 bay degmo noqotay 1968 oo kuraasti u horeysay oo doorasho ka dhacday bay degmo noqotay dokumentigeedina wakaas hadda aad haysaaniin waa kan liiskaas ku jidha ninka yiraahdo degmo goorma degmo noqotay wata gacantan ku hayna halka maxaa ku qoran elezione politiche ed amministrative Giugno lambar waa kan Lecce 6 waa bulletin ufficiale Repubblica Somala 6 Giugno 1968 numero 13 wakaas dalka aan aqoon iyo rag ka bacdi dhashay wakaas halkaas ku jidha degmada Jiriiban iyo kuraasteedii maantana 2 kursi bay lahayd maantana hal kursi ma ay laha oo waxa hadda la dooranayo dhanayo degmooyinka la qaybsanayay oo hadda Puntlandtaas martiba ka noqotay hadda maqlaayaan dhawayba nin hal nibi ku soo baxay oo magaca degmada Jiriiban ala kulli xaal arintu marka taariikhdu sidaas weeye waxay soo madhay halganka dheer dad xoolo dhaqataa ahaayeen dad nabadooda iyo deegaankooda ka shaqeystay ahaayeen badoodaasna maartay isaga xiran xoolo dhaqatana ah intii ka dambeysay waxa state waxay gaadheen maartay calankii la qaatay in dawlad la noqday in degmada Jiriiban marka ay noqotay hadii ay ku reeyahay degmo noqotay hoos timaada Garaacad Jiriiban bay hoos imaanaysay kacaankii baa ka bacdi qabsaday 1969kii 74 xarumihii u waaweynaa oo gargaarkii aad maqli jideen oo 74 ka ahaa meeshii goobihii lagu soo xareeyay Berbera iyo Galdogob iyo wixii inta u dhaxaysay xaruntan Garaacad baa la soo dejiyay aakhirkii sanadkii markuu bilaabnay 75 baa la shalay dawladdu waxa ay soo ma gaari kadhay bal mar haday xeeb tahay cadalan geynayna meel dawladdu gaari kadho safaradeeda iska yaraa xilligaas maamulkeeda iyo hawsheeda iyo degmada ahaan baa maamuleysay
anigu gargaarkii waxaan ka mid ahaa dadkii liiska wax ka qorayaan ka mid ah oo liiska gudbinayay loo soo gudbinayay xamuraa lagu ururin jiray baabuur baa la keeni jiray halkaana lagu soo reeri jiray saas dadka maanta aqoon-yahanka oo hadda iskuullada dhigo oo macalimiinta ay cadale raggii kusoo bartay weeyo deegaankan saas ogaad waa ragga halkaa iskoolka ka galay iyagoo caruura la qaaday xilligaas haddii adduunka halkaasuu marayaa xaaladdu halkaasii maraysaa degme ahaan marka isbedeladaas dowladdii kacaanku nidaamkeedaas iyo shaqadeedaas iyo 1991 baa dowladda dhexe meesha ka baxday waxaa la isku noqday walaahow iska daba ka laabasho intii marka wixii dhacay iyo qabaa'ilkii isku yaacay iyo wixii ahaana waxay ka mid ahay meelihii iyadu difaaceeda xiratay oo dadkii maaragtay aan barakicin oo ka guurin deegaankeeda ilaahay mahadiis bay noqotay sidii bay u degan tahay waxaa soo hormaray maxaa marka soo kordhay maxaase isbedelay waxaa isbedelay Garacad maanta inay tahay meesha magaceedu ku fiday adduunka oo ugu fiday isxilqaanka maamul goboleedyadii markii la dhistay oo qolo walba hays maamulo la yiraahdo oo isku tashi la galay oo qolo walba hays dabardheeyay in dadkii deegaankan u badnaa oo deegaankan gobolka Mudug iyo dadkii degi jiray iyo nawaaxigeeda ay Garacad dekada ka asaaseen 2016 baan maleeyahay inay ahayd markii dhagaxeeda rasmiga la dhigay maxaa ka horeeyay hawlo badan iyo sahamo badan iyo iyada ma koobi karo kacaankii xataa wafti baa yimid oo sahan u yimid kuwa kale waa yimaadeen Cabdullaahi Yuusuf markii uu horeysay oo loo magacaabay meesha tan wuxuu ballan qaaday inay noqon doonto haddii Ilaahay ku raayo meesha uu wax ka qaban doono Ilaahay mahadiis isagii waa wafaaday intii ka dambeysay raggaas baa joogay isxilqaankaas ku dhisantay maanta waxa weeye hantida ugu culus oo Puntland oo hadda laba dekedood bay leedahay Puntland sida la ogyahay mid waa Boosaaso oo midii lagu caanamaalay ahayd oo lagu barakoobay oo dhibaatadii iyo wixii iyo martidii looga baxay markii la kala xirmay tana waxay noqotay tii labaad maanta tana hadda culus oo dhismeedu ka sii culus yahay labaduna saas isu kaashanayaan Ilaahay idankii Ilaahay mahadiis rag baa maal gashay isku tashi baa la galay meel fiican bay maraysaa haddana waxa weeye gabagabadii oo wax yar u dhiman yihiin iyadoo wax yar oo qabiyo ah ma ahine iyo wadadii ma ahine wixii kale waa dhameystiranta maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo waxoodii waa dhisan yahay dekadu waxay ku soo kordhisay hadda horena waa u sheegay oo isbedel weyn bay ku soo kordhisay oo adduunka oo dhan hadda iska daacid kale hadii qof aan aqoon iyo mid kastoo yaqaan iyo ilaa kilinka shanaad waxay ku soo kordhisay horta inay ganacsiga gobolada dhexe ay xudunta u tahay Soomaaliya Etoobiyana badeecadaha halkan laga qaadaa tagto ilaa kilinka shanaad toos u tagto inta ka sokaysa bil iska daayay xagga koonfurtana ilaa Hiiraan alaabteedu meesha inay ka soo degto waxay kordhisay shaqo abuur iyo shaqo badan iyo intaas hadda la dhisayay shaqadeeda iyo dadkeeda iyo mashaariicdeeda magaaladuna waa ku dhisantay iyadina waa dhisantay isbedelka sidaas ay keentay haddana waxaan rajeynaynaa haddii Alla idmo waqti dhow in ololo badan oo waxyaalo la sugayaa jira isla bishan gudaheeda in isbedelkeeda uu noqon doono maaragtay mid la taaban karo oo nacfigeedu soo kordho waxaa soo haray xagga xilligan reer guuraaga iyo nolosha kale abaaraa jira dayrtii la soo dhaafay iyo gugii hore roobabka intaan ma qaban jiriiman iyo intaa ka sokaysa iyo balbisle intaa ka sokaysana waaxigaas roobabkii waa ku yaraaday meelaha qaarkoodna maba qabanba taasaa waxay keentay barkadihii inay martaan biyo la-aani dhacdo cawskii intii naqa ahayd oo carcararahayay oo hadbalgeerahayay ka dhammaado biyo dhaamiskii hadda muddo bil abuu socdaa bil sida ilaahay looga bartayna gudii hadee ma dhowa oo ugu yaraan 2 bilood baa la saadaalinaya oo jiilaalkaasi lagu jiro waxaana dadka soo hanti haysta
بعد قاليه سوق يدي حنيه جناعسي حواليه وحي الكلام اللي سكود بري شري marka taasna waxaan ugu baaqayaa hadii odayaasha aan ka mid nahay meesha hadda jooga in dawladda Puntland liisaskaas ku dardho qayladhaantu ka jidho sahanna ku timaado hay'adaha mararka qaarkood waxtaa kuleen jirayna hadee waa u furan tahay adeega Kaftoon ee bangiga Salaam waa adeeg ku sahlaya in lacagtu kugu jirta akoonkaaga bangiga aad kala bixi karto ama aad dhigan karto adigoo adeegsanaya moobilkaaga Golis xilli kasta habeen iyo maalinba si khidmad la'aan ah adigoo aan booqan xarumaha bangiga